kadib markii si diiran oo loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Garadweyl ee magaalada Jigjiga gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Axmed Shide Maxamed loona soo galbiyay xagga qasriga madaxtooyada ee deegaanka ayaa waxay halkaasi gudoomiyaha iyo madaxweynaha deegaanku kulan kula qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka waxaana halkaasi ay odayaasha kaga wada hadlayeen sidii loo sii adkeyn lahaa midnimada deegaanka iyo shacabka gaar ahaan doorka ay ku leeyihiin odayaal dhaqameedku midnimada deegaanka tiyo sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Shide Maxamed uga mahad celiyay odayaal dhaqameedka deegaanka doorkii ay ka ciyaareen mideynta shacabka ee xaaladii ismaandhaafka siyaasadeed ee dhawaan hareeyay deegaanka kulana dardaarmay inay si adkeeyaan doorka odayaal dhaqameedka iyo isku duubnaantooda waanadaad nasiiseen iyo taladaad nasiiseen sidaad noo sharafteen idinkuna Allah idin sharfo oo aabayaashani baad tihiin marka danta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed sidii si wada jir sidaan u wada ilaalin lahayn baanu ka wada shaqeynaa taasi nagu kalsoonaada wixii dhacayna wax badan baan ka baranayna moogi gadaal noo mareexayo inta taas uga taamo loo baahan yahay ajadaha kale aan soo jeedin lahayn waxa weeye in sidaad xisbi ahaan iyo dawlad ahaan sidaad noola shaqeyn lahaydeen inaan nidaameyno ama qaabeeno odayaasha oo golaha guurtidoo kale sidaan ku sameyn lahayn iyo qorshe ahaan in badan aan ka fikiraynay ee noqdo qaab dhismeed joogto ah oo qaab dhismeed dawliga oo sharci shuruucda kale inaan soo saarno ama baarlamaanka aanu marino ama cabinet inta marino in si wada jir aanu darasno sidaasna marka si mideysan sidaad nolol shaqeyn lahaydeen golaha guurtiisa dhankiisana madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa cadeeyay in jidka midnimo ee la jideeyay loo baahan yahay in la sii adkeeyo ra'iisul maanta dalka haysta iyo tiimka la shaqeynaya waa dad dulmiga ka hadlayna soo daashaday laftooda oo aan diyaar u ahayn inay dad kala dulmiyaan dhabaana ilaa hadda ficilada ay muujiyeen waan ka aragnay arintaas marka bari waxa la dhici kara waa shakhsi kooxda meesha haysta meesha ka bixi karaan koox kale oo iman karta haddii cid khaldan oo sidii awal ahaan jirtay khalad inay samayso go'aan qaadata ay soo baxdo yaa Soomaali u maqan oo difaacaya way meesha wax yaala su'aashi annagana ashkhas baan hoo awood baa jiray ama dhiman kara anagu waan dhiman karnaa wax kaas dhiman kara in institutions ama hay'ado iyo kala duwaliyo dadka difaaca shacabka dantiisa difaaca inay jiraan midnimada Soomaaliyeed baa maaragtay yaa u baahan dantiina u baahan taa inaan ka wada shaqeyno wixii dhacayna aan iska cafino gabagabadii kulankan ayaa waxa saxaafadda la hadlay wasiirka xafiiska xiriirka dawladda deegaanka Mudane Cabdilaahi Maxamed oo cadeeyay in kulankani uu kaalin weyn ka qaadanayo mideynta shacabka deegaanka wixii khilaaf ah xisbiga ku dhex jiray waagii tolo nidaamka reformka loo wadi doono madaxweynihii iyo gudoomiyaha xisbiga baad arkaysan saaka in maartay miiska dusheeda lagu dhameeyay hawshaas ay dhamaatay laakiin nidaam waxa jira dad la qabsaday 27 sano soo dhaafnay ka baac mushtari jiray dhiigga shacabka oo ahaa in nidaamka farfiiqa ama jaajusnimo industry waxa loo yaqaan warshada jaajusnimada adduunka waxa weey ma taqaanaa maanta moodayay in lagu shaqeynayo yiraahdo dadka hebel wuxuu aaminsan yahay Soomaalinimu aaminsan yahay deegaanka Soomaalida yaa la yiraahdaa deegaankeena annagu waxaanu aaminsanahay deegaankeenu Soomaaliya qowmiyadana kale noqon leen maxay tahay qowmiyadda Soomaalida ayaan nahay marka dadku waa la soo dhaafay maanta waqtigii la soo jiray hebel Soomaalinimu aaminsan yahay dadku waanu aaminsanahay meel kale Soomaali u dhaafno annagu ma garanna dhaqan baan wadaagnaa luqadda dhaqanka wax walba oo kobcinayna oo Soomaalidu ay leedahay waana dadka kale dariska nala ee Soomaalida ana waxaanu kula dhaqmaynaa jaar wanaag iyo walaaltinimo iyo isqadarin iyo ixtiraamid dadkaas marka fadhi ku dirirka ee Addis Ababa fadhiya ee maartay ku guuldareystay hadda ka horna ka baac mushtari waqtigii dadka dhiig dhibaatadu dhacaysay iyagu maartay baac mushtarka ku jiray waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan arintaas dadka salaada tukada de xisbi lagama dhigi karo lama qoran hebel waa maxay iyo waa maxay lama oran karo salaada waa la wada tukada dad muslimiin ilaahay baa nafaray waajib ka horeeyay baa jira oo in la tukada ay tahay deegaanada kale dadku kiniisadaha waa la galaa diimaha kala haystay kiniisaday tagaan meelo kala la tagaa lama yiraahdo wali ma inaan maqal iyadoo la leeyahay hebel kiniisadu galaa iyo hebel ma taqaanaa arrintan noocaas sameeya marka waxaan uga digaynaa qofka diinta uu haysto sideedu ugu dhaqan gelin mabaadi'da iyo ideolojiyadu way kala duwan yihiin taas iyada gooniyadu tahay laakiin wax farfiqa iyo wax korna looga yeeriyo way dhamaatay hawshaas waqtigeedina uu soo gabagaboobay shakhsiyaadka waxa ku sii dhex jirana waxaan leenahay ka waantooba hadad ka waantoobi weynaa waxaad ka faa'iidaan baad leedihiin aad ba maasantiin dhankoogana odayaal dhaqameedka deegaanka oo markii uu soo dhamaaday kulankani la hadlay saxaafadda ayaa cadeeyay inay aad iyo aad u soo dhaweynayaan midnimada iyo isku duubnaanta hogaaminta sare ee deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore waa mahadsantihiin waxa ilaahay mahadiya gudoomiyaha xisbiga Mudane Axmed Shide oo maanta noo yimid baaqayagii odayaasha iyagu ka jawaabaya
in aan wada hadallo arrimaha jira ee soomaalinimadana lagu dhameeyo jigjiga taas way noo suurta gashay taasna wax ilaahay loogu mahadiyo in horumarka iyo nabadgelyada iyo walaalnimada iyo soomaalinimada iyo midnimada ummadeenna laga shaqeeyo ayaynu isla qaadanay madaxdii aan la kulanay gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha deegaanka labadaba iyaguna si fiican waanadayadii iyo taladayadii bay u qaateen wixii jirayna way dhameeyeen wixii hadda ka dambeeya waxa weeye waa in horumarka iyo nabadgelyada iyo wanaagga loo dhaqaaqo taas bulshada Soomaaliyeed baan ugu bishaaraynaynaa waxay xagga ka saartay 27 sano ee inaga in laynoo yeedhiya ahayd dawlad hadda wax yeedhisaa ma jirto ra'iisul wasaare dalka mudane abina waa u mahadcelinayaa Dr. Abi in uu talada annaga noogu soo celiyo isgarab taaga in ummadda Soomaaliyeed ay wax noqoto mar walba la garab taagan yahayna waan ugu mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed baaqaan u dirayna waxa weeye in wax walba oo jira haday xukun tahay haday kursi tahay haddii hami siyaasadeed oo dhan uu jiro in bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda laga raadiyo oon laga raadin wixii na soo daashaday kor baa la iga wataa ahaa in la iska daayo taasna gudoomiyaha iyo madaxweynuhu way noo ballan qaadeen in bulshadu Soomaaliyeed midnimadeeda ay ka shaqeynayaan waxtarkeega ka shaqeynayaan qiyamkeega iyo niyadeeda inay kor u qaadayaan inay ka shaqeynayaan bay noo ballan qaadeen taasina waa farxad dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye walaalayaal midnimada ummadda Soomaaliyeed baynu wax ku nahay qabiil iyo qabyaalad waa tii xagga ayna dhigtay in qabiil iyo qabyaalad laga koro loo gudbo in midnimo Soomaaliyeed aan wax ku raadino maanta Itoobiya isbedel baa ka dhacay isbedelkaas Itoobiya ka dhacay ee qoomiyad walba iyadu danaheega ka tashanayso khilaafkeegu iyadu dhamaysanayso deegaan walba ka socda inaan inaguna ka mid noqono oo maanta khilaafkeeni iyo wixii jiray baan Soomaalinimo ku dhamaynayno taasaa maanta wax weyn inoo ah taasaa maanta aan aad ugu faraxsanahay shacabkana ugu bishaaraynayna wixii hadda ka dambeeyana midnimadeeda hadaynu adkaysano horumarkeena wanaageena midnimadeena wada jirkeenu meel sare u gaari doona isbedelka Itoobiya ee reformka ka socdana inaan taageersanahay baan xaggan ka qiraynaa reformkaasi waxa weeye ummad walba inay iyadu ayaheega ka tashato iyadu midnimadeeda iyo wanaageega iyo horumarkeega ka tashato annaguna kuwan baan ka mid nahay dalkeena hadda si guud ahaan waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu nabadii nooga dhigo dadkana waxaan leenahay nabadgelyada iyo walaalnimada ha laga shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo wixii hadda ka dambeeyay isqabqabsi iyo isjiidjiida dambe u haray horumarkii inaga dhaafay 27 sano inaan ka shaqeyno ayaa loo baahan yahay marka waxaan idin bishaaraynaynaa waxaan leenahay waad mahadsantihiin garab istaagii iyo midnimadii aad muujiseen inaan uga faa'iideysano horumarka loo baahan yahay in la iscafiyo oo xilligiis cafiska uu yahay baan xaggan uga gudbinaynaa wixii hore u dhacay inaan dib u eegin wixii hadda kadib wixii na hortaagan inaan ka shaqeyno iyo horumarka iyo nabadgelyada baan idinku baaqaynaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh